labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan xasaasi ah ku leh magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Kulanka xildhibaanada labada aqal ee aqalka sare ee baarlamaanka iyo sidoo kale aqalka golaha shacabka ayaa ah maanta mid xasaasi ah kaasi oo looga doodayo arrimaha masiiriga ah si gaar ah dastuurka ku meel gaarka ee dalka kaas oo doodiisu ay soo jiitamaysay wax ka badan 10 sano. Dowladihii isaga dambeeyay talada dalka ayaa ka gaabsanayay inay wax ka bedel ku sameeyaan dastuurka ku meel gaarka ee dalka iyadoo muran badan imika iyo xasaasiyad ay abuurtay wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka ah oo dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ay ku adkaysatay inay wax ka bedelayso. Villa Soomaaliya waxaa lagu eedeynayaa in danteeda ay ka dhex aragtay wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka si gaar ah qodobada ku astaysan muddaxileedka 4 sano ee madaxtooyada iyo sidoo kale hay'adaha dowladda ayaa la bedelayaa iyadoo hal sano lagu kordhinayo sidaas darteedna sii joogitaanka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo hay'adaha kale sii joogitaankooda ayaa sii dheeraanaya. Mucaaradka dalka iyo sidoo kale dadka wax falanqeeya waxay leeyihiin madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu ku fududaanayaa wax ka bedelka dastuurka kaasi oo muran xooggan dhalinaya. Maalintii shalay gelinkii dambe kulan aan caadi ahayn oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa Muqdisho ka dhacay. Kulankaas waxaa looga hadlayay wax ka bedelka dastuurka iyo jadwalka wax ka bedelka waxaana la isla afgartay in jadwalka la horgeyn doono golaha aqalka sare iyo kan aqalka hoose ee kulanka maanta labada aqalba. Nuqulka wax ka bedelka ayaa la geeyay kaasi oo maanta labada gole loo qaybin doono isla markaana ay akhrisan doonaan. Akhrinta kadib waxaa loo guda geli doonaa dood adag taas oo la filayo in xasaasiyadda ay leedahay darteed baarlamaanku ay ku kala qaybsami doonaan. Kulanka labada aqal ayaa suurtagal ah in mar kale buuq uu hareeyo iyadoo la ogyahay toddobaadkii hore ama iyadoo la ogyahay toddobaadyadii la soo dhaafay markii la daahfurayay habraaca wax ka bedelka oo la meel mariyay in dood xooggan ay dhalatay xilligaasi. Horey labada aqal waxay si wada jir ah u meel mariyeen wax ka bedelka dastuurka ku meel gaarka ee dalka taasi oo micnaheedu uu yahay in wax laga bedeli doono ama la ogolaaday in wax laga bedelo dastuurka ku meel gaarka ee dalka. iyadoo arrintaasi ay jirto ayaa waxaa iska soo daba dhacaya fariimaha mucaaradka ee dowladda Xasan Sheikh Maxamuud kuwaas oo fariimo xooggan oo isdaba joog u soo diraya madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud saacadii u dambeeyay ilaa iyo shalay fariimaha soo dhacay ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud la gaarsiiyay waxaa kamid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa si wada jira warqad qoraal ah u soo diray madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. Warqadda marka la eegto waxaad ka dheehan kartaa sida kulul ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud loogu taaqtaaqsaday ama loo dul istaagay taasi oo loo dhaleecaynayo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo xukuumaddiisa. Qodobada ama nuqulka warqadda waxaa ku qornaa in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu ku xadgudbayo dastuurka dalka oo kaliya afti dadweyne lagu meel marin karo taasi oo ah in dowladihii hore ee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ka horreeyay ka gaabsadeen kaliyana afti dadweyne oo kali ah lagu meel marin karo oo aysan ahayn in baarlamaanka dalku ay faragelin karaan. Si kastaba arrintan oo muran dhalisay ayaa madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxa ay siyaasiyiinta ku bahaysan warqadan ku dhaleeceeyeen in murankan uu gaab gelin doono dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale habsami u socodka dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale waxyaabaha soo kordhay ee ay ka mid tahay xurgufta siyaasadeed ee u dhaxaysa dowladda Ethiopia iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya taasi oo Xasan Sheikh Maxamuud loogu baaqay kaliya in danahaas uu wax ka qabto oo ka gaabsado meel marinta arrimaha dastuurka dalka oo la aaminsan yahay in dowladdani qodobada ay danaynayso ay wax ka bedesho oo kaliya. waa mahadsantiin saaxiibayaal waxay war ku soo kordho kulanka labada aqal ee wadajirka ah halkan ayaad kaga bogan doontaan fadlan falowdhaha page-kan oo share gareeya oo rukunta si aad u heshaan warbixinada joogtada ah. mahadsanidin.